wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka diiradda dunida waad aalaaba xiliyadan oo kaleeta ka daawataan shaashada tv-ga caalamiga RTN stuudiyiisa magaalada muqdisho barnaamijka toddobaad kasta waxa aan ku qaadaadhignaa dhacdooyinkii u dambeeyey ee caalamka ka dhacday toddobaadkan barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa 3 sano ka bacdi xaggee ayay maraysaa qabsashadii ururka Taliban waddanka Afghanistan toddobaadkan wufuud kala bedelan oo ka socday Shiinaha iyo Ruushka ayaa waxa ay gaareen caasimadda waddanka Afghanistan sidoo kale barnaamijkeena toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa heshiiska lama filaanka iyo taariikhiga ay gaareen ururka ay taageertay Iran ee Hezbollah iyo gumeystaha Israa'iil barnaamijka aalaba waxaan noogu marti oo aan kala sheekaysanay dhacdooyinka toddobaadkan caalamka ka dhacay siyaasi daayar timacade oo ah shakhsi falanqeeya siyaasadda gobolka iyo midda caalamka ustaad markor oo soo dhaweynayna maxaan ka naqaanaa ururka Taliban 3 sano ka bacdi xaggee ayuu maraya Afghanistan waxaa maasan tahay waan ku dhawaay barnaamijka diradda dunida 3 sano kadib 2021 ayay ahaayeen markii Taliban ay qabsadeen Afghanistan oo xukunka kala wareegeen ciidamada shisheeye oo muddo 20 sano ka badan xukumayay Afghanistan 20 sano kadib ama 3 sano kadib markii xukunka la wareegeen wax buu qabtaa isbedel inuu ku dhacay Taliban iyo Afghanistan oo idin maxaa yeelay waxaa beenooday wixii adduunyada loo sheegi jiray oo ahayd in Afghanistan haddii Taliban la wareegaan inay dadka dilayaan in xuquuqda insaanka qaarkood lagu tumanayo inuusan horumari jirin laakiin waxa uu qabtaa horumar lama filaan in Afghanistan gaartay oo ay xiriir la samaysatay wadamo China ay ka mid tahay Russia ay ka mid tahay dhaqaalahoodina dib u soo kabasho weyn ayaa laga dareemayaa Afghanistan marka 3 sano kadib waxay joogtaa meel aan la filaynin toddobaadkan waxa Afghanistan booqday la taliyay horeete ee Putin maxay ka dhigantay arrinkaas isaga maadaama qof noocaas oo kale ah galbeedku dunida in badan ka gaday in ururka Taliban ay yihiin argaxiso maanta dunida ay u kala ordayso halkaas inay tagto runtii Ruushka iyo markaad fiirisid Afghanistan ama Taliban xiriir weyn ka dhaxeey Ruushka Afghanistan waxay ka mid ahayd wadamadii midowga Soviet oo inkastoo markii dambe dagaalo oo ka dhacay Afghanistan oo Soviet-ka lagu soo horjeeday lagu jabiyay wixii loo yaqaan jihadka Afghanistan oo 79 ilaa 89 socday muddo dheer waxa lagu xamad jiray inay Taliban maalgeliyaan inay Taliban hubsiyaan 2019 wufuud ka tirsan Taliban ayaa booday Russia oo qaab sirdoon camal u booqday marka xiriirka Russia iyo Taliban ama Afghanistan oo dhan waa xiriir aad u wanaagsan oo iskaashi iyo wax qabsi ah maxaa yeelay mar kastaba Ruushku wuxuu ogsoonaa inay Taliban iyo Afghanistan ay tahay wadan saaxiib la ah maxaa yeelay history background marka dib u fiirisid wadamadii aadka ugu fiicnaa xilligii oo Soviet Union-ka ay ka mid ahayd marka dib u fiirisid taariikhda Taliban iyo Ruushka wax u qabtaa inay isku dhow yihiin oo markii la fiiriso maadaama Talibaniintu ay ka soo horjeedeen reer galbeedka Ruushku dhinaca kale uu taageeray wuxuu taageerayay midnimada dhuleed ee Afghanistan marka waxaan ognahay 3 sano ka hor in ciidamada Mareykanka iyo kuwa galbeedka ay taageerayeen ay ka baxeen caasimadda Tripoli ee Afghanistan dhacdooyin la yaab leh markaas dhacay waxyaabaha dunida ku faafay waxaa ka mid ah in Afghanistan ama ururka Taliban ay sameeyaan dumarka oo kaleeto ay kala kulmaan in ay caqabad saaraan 3 sano ka bacdi maxaa isbedelay siyaasadda arrimaha dibadda ee Afghanistan runtii wax badan baa isbedelay maxaa yeelay waxaa beeloobay fikirkii dadka Afghanistaniyiinta ahaa Afghanistan waxaa loo ogaa jiray meel adduunyada ka go'oosan Taliban waxay iska ahaayeen urur diineed sunni ah oo kacdoon qaad bulsho camal ku bilaabmay bilowgii 90-yadii xilligaas Afghanistan markii ay dowladdii taageeraysay midowga Soviet oo wadankii jamhado iyo ururo diini ah meesha ku bateen ayaa ururkan Taliban halkaas laga aasaasay waxaana aasaasay hogaamiye la dhaho Mullah Omar Maxamed micnaha Taliban hadaa fasirno dadku si u fahmaan Taliban waa ardayad ama arday marka waa qaab silmi ah oo kacdoon arday inta sameeyeen kadibna wadanko dhan ku faafay 96 ayay qabsaday xukunka Afghanistan gaaraan Kabul ilaa 2001 ayay joogeen bishii Oktoobar xilligaas oo Mareykanku uu duulimaad ku soo qaaday Afghanistan isagoo markaasi ka dhadhansanayay inay Afghanistan gabaad u tahay Osama bin Laden iyo Al-Qaacida xilligaas oo Al-Qaacida iyo Osama bin Laden ay ka soo guureen Suudaan marka waxaad u qabtaa siyaasadda arrimaha dibadda 3 sano ay Taliban joogeen wadamo fara badan oo Ruushka uu ka mid yahay China ay ka mid tahay
ay ka mid tahay Sacuudi Arabia, Pakistan ay ka mid tahay, Qatar ay ka mid tahay, wadamo badan ay xiriir Turkiga oo ka mid yahay xiriir fiican ka dhaxeeya. Xataa waxyaabo cajiibka ah ka mid ah markii madaxweyne Donald Trump la doortay, waxay ka mid ahaayeen wadamadii u hambaliyay Donald Trump. Marka siyaasad qaangaarnimo ay ciyaarayaan oo ka duwan wixii hore 20 sano ka hor. waxaa ognahay Trump waqtigiisii markii uu xilka ka tegay Biden joogitaankiisii inay ahayd waqtiga ay ciidamada galbeedka taageerayay ama muddada badan ka dagaalamay meeshaas ay ka baxeen waliba hadalla caan baxay waxaa jiro inay dhaheen maqbaratul ghuzaad waay dadka soo duulo qabrigoodii waay tusaale ururo kale waxaa ka jiro dunida farqiga u dhaxeeya Taliban iyo ururada kale ee caalamka ama dunida kale argixisada u taqaanaan maxaan dhihi karnaa runtii farqi weyn u dhaxeeya waa urur wadaniyiin ah waa sida maxkamadaha islaamiga Soomaaliya u ahaayeen oo aysan jecleen inay wadamo kale u tilaan waa dad wadaniyiin oo doonaya dadkooda inay xukumaan kuna xukumaan ra'yigooda iyo diintooda marka waa ka duwan yihiin ururada kale waxa macquul inay ku haminayaan inay meel xuduudooda ka talaabsan inay dhibaato ka geystaan laakiin waxyaabaha cajiibka ah Taliban oo urur intaasoo 20 sano ka badan Mareykanku cadaadinayay markii wadankooda qabsadeen dadna ma dilin dadna ma dhicin waxay ka shaqeeyaan horumarkii dalka inkastoo mararka qaar waxaan akhrinayo Reuters warbixin ay ka sameynaysa tacadiyada dhanka saxafiyiinta ayaa aad loogu eedeynayay waxaa la sheegay 3 sano xukunka joogeen 250 saxafi inay xireen marka intaas maahan wax gooni ah oo Afghanistan ka jira maanta ma jirto okay maadaama toddobaadkan aan tilmaanay shakhsiyaas muhiimka in uu halka u booqday Afghanistan maxaan ka ognahay xiriirka Ruushka iyo Taliban runtii xiriirka Ruushka iyo Taliban waxa uu soo tixnaa ilaa markii Taliban la aasaasay 9-meeyadii maxaa yeelay Taliban waxa ay udub dhaxaaq u ahayd halganka laga soo horjeeday yani in Taliban nabad loo helo maxaa yeelay Soviet Unionka bacay jamhadaha dalkii oo sameeyay marka xiriir qarsoon ay la lahayd kadibna waxa dhacday markii Taliban 2021 xilka ay la wareegeen inuu xiriirkiisa fiican u sii baahay maxaa yeelay waxa wuxuu noqday xiriirkii bilateral laba dawlad oo la yiraahdo Afghanistan iyo Moscow marka muhiim uu ahaa labada dawlad inay dhanka ganacsiga iyo muqaabaraadka iyo wax walba oo ku saabsan laba dawlad ka wada hadli karaan xiriirkooduna marka si u fariisid markii laga soo tago xilliyadii horena waxa way xiriirkooni wadan midowga Soviet ka tirsan oo dhaqaale far badan lahaa inkastoo wadankaas Afghanistan wadan buuraley ah oo inta badan wax soo saarkiisa inta ugu badan waxa way waxyaabahan kokanta ama waxyaabahan maanka dooriya marka Afghanistan iyo Russia waa laba dal oo saaxiibo ah oo markasta iska kaashada in laga soo horjeesto reer galbeedka xiriirkan marka booqashadan maxaa xiliga ugu soo aadiyaan sidii karnaa asiga ayaga bas ma ahaan waxa la qorayaa oo kale sawiraan laga soo qaadaya in wafdi China ka socday toddobaadkan aad lagu qulqulayay muhiimadda intaas dhan maxay tahay dunidu u danaynayso dunidu waxay u danaynaysaa maxaa yeelay waxa isbedelay ra'yiga laga haystay Afghanistan waxa laga haystay oo Mareykanku uu sheegi jiray haday Taliban xukunka qabsadaan in wax walba isbedelayaan in siyaasadda arrimaha dibadda oo noqonayaan urur laakiin 3 sano ay joogeen waxa furfurmay siyaasadda arrimaha dibadda wadamo fara badan ayaa ku dhiiraday inay Afghanistan ahaan Afghanistan deymaha laga cafiyo in lacagay bangiyada loo yaalo wadan kasta reer galbeedka ma ahaan in loo fasaxo reer galbeedka wali waxa uu qabtaa in colaadii wali ku jirto inkastoo heshiis la gaaray Mareykanka Qatar ay ku gaareen laakiin haddana waxa uu qabtaa wali colaadii iyo dib u jiraan iyo xuquuqda insaanka halkaas ka fiirinaya laakiin Afghanistan waa dad tashtay oo wadankooda dhismaayo oo wadankoodu fikrad iibinaya okay haddii aan fiirino xaaladda xuquuqul insaanka Afghanistan maadaama dad islaam ay yihiin waan ognahay shariicada islaamka ama diinta islaamka halka ay xuquuqda aadana ay dhigtay propagandana iskaga badanta waxyaalaha reer galbeedka dadka ay ka gadayaan hadda markii aan fiirino xaaladda gudaha Afghanistan sidee waay xuquuqul insaanka runtii markii inta ka soo warbaahin xor ah aysan ka jirin Afghanistan oo Taliban ay aad warbaahinta u cadaadiyaan haddana dhanka dumarka iyo waxbarashada in dumarku inay waxbarasho aadaan aad uguma firfircoona maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in dumarku guryaha ay joogaan ragga ay ka dambeeyaan marka dhankaas cadaadis badan ayaa ka jira adduunyadana waa loo sheegay in Afghanistan dumarku u oggolaadaan inay wax bartaan haddana xuquuqdii warbaahinta